بسم الله هدي أد مغلي جرتي فاتالي ميل كلا هورادين وانين كان كو موغدا وحونو دشي دالكا كينيا waxay baraha bulshada iska barteen gabadhan ku muuqata oo u dhalatay isla dalka Kenya waxay baraha bulshada ka haasaawaanba waxay hoosta ka xariiqeen inay ku kulmaan markii ugu horeysay mid kamid ah maqaayadaha ugu shidan ee ku taala magaalada Nairobi ugu dambeyn aragii ugu horeysay ee gabadha dhankeedana waxay ku qanacday ninkan muuqiisa inuu u muuqdo ragga qadeeya alashan tiimanay ahayd heesta markii la fariistay salaan kadib wuxuu ku yiri dalbo oo dooqaaga ka ciyaar wixii maankaaga maskaxdaada riyadaada ahaa jiray ee cunada ah dalbo cunno yar oo fudud ay naagtii dalbatay intii la sheekeysanayay cunadiina ay waday cunisteedii ayaa ninkan telefoon u soo dhacay wuxuu ku yiri telefoon muhiim waaye bal wax yar ii kaadi ninka adiga ma aragtay maya anigana ma arkin gabadhiisa maxaa ku dhacay adigu se waa kugu dhici kartaa bal waxa ku saabsan guud ahaan muuqaalkaasna waan kula wadaagi doonaa muuqaalka xiga halkaani ku muuqata waxa fadisli caawa wixii ka dhacayne kaliya waxaan ku tilmaami karaa musiibo waa dhacdo qaraacan murugo uur ku taalo walwal iyo walbaar xambaarsan sida ku muuqata halkaani waa maqaayad muuqaalkaana waxa soo duubay isla milkiilaha maqaayadani way cusub tahay muddo kooban kaliya ay furan tahay حتى قرشاتكي لغو دhisay wali lagama soo saarin haddana sida ku muuqata burbur ba'an ayaa ka muuqda oo caawa waxa weerar ku soo qaaday rag hardamaya sida ku muuqatana sidaas ay intuu baabi'iyeen ay haddana iska tageen milkiilaha fariin nuucee ah ayuu ragga adigaba ku sidaa bal waxa ku saabsan guud ahaan muuqaaladaas aan kula wadaagi doonaa inta aan soo guda galin haddii ay tahay booqashadaadii ugu horeysay waxayna si xushmadi ku dhaantahay kaga codsana walaal inaad maantaba nagu soo biirtaan channelkana subscribe inoo saartaa sidoo kale waxayna si xushmadi ku dhaantahay kaga codsanaya qof walba oo muuqaalka daawanaya bal inuu laagta iyo sharti soo keen dartaan si guud ahaan muuqaalkeena uu gaar bulshada Soomaaliyeed soo dhawaada saaxiibayaal haddii aad maqal jirta faataale meel kale ha u raadin waa ninkan ku muuqda waxa uu dhashay dalka Kenya waxay baraha bulshada iska barteen isla gabadhan ku muuqata oo u dhalatay isla dalka Kenya waxay baraha bulshada ka haasaawaanba ugu dambeyn waxay hoosta ka xariiqeen inay ku kulmaan mid kamid ah maqaayadaha ugu shidan ee ku yaala magaalada Nairobi way kulmeen gabadha aragtida ugu horeysay qaacada ugu horeysayba waxay tiri alla ilaahay ninka waa kii maniga aad ka dhuuqi lahayd waa ragga qadeeya alashan aan ku soo koobay wuxuu yiri dalbo oo dooqaaga ka ciyaar maba ka waalinba cunno yaroo fududoo yaaw ah ayba dalbatay laakiin qiimadeeda waa intee waad yaabi doontaa cunadii markii cunista ku bilowday ee dhex wada sheekadana ee isku daba dhacday ayaa ninkan telefoon soo dhacay dhar uu ka aamusay mid kale ku soo dhacay dhar wuxuu yiri nambarkan muhiim waaye bal wax yar ii kaadi waa istaagay ninkaadi ma aragtay anigana ma arkin bal mid kamid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa sheekadan inoo soo koobay ee tii ka raacday gabadhan digniinta adii lagu sido bal muuqaalkiisa afjoog loo maadeego cid aan arkin ma jirto waxa gabadha ku dhacay Juliet Awata ninba maqaayad inuu ku ballamiyay 10,000 oo biil ah kaga dhaqaaqay qaab ay u bixisana way garan weysay sheekada gabadhan ku dhacday waxay taagan tahay ninkan wuxuu ahaayay online ku baratay magaciisu waxa la yiraahdaa Alan Ochenga la yiraahdaa magaciisu waa Kenyan nin macquul gal leh oo maaragtay libisan oo magaaladii nin qadeeyo ilaa ka ay leedahay ninkii muddaan sheekaysanayna labadoo maalin uu iballamiyay maqaayadu igu ballamiyay maqaayadii ay maaday wax dirso ay dhahay wax yar qada yar oo fudud aan dirsaday leedahay markii aan qadadii dhameeyo laba jeer isla hadalno isfahanay telefoon oo soo dhacay markoowaad mar labaad oo telefoon soo dhacay wuxuu dhahay waa muhiim uu la kacay markii ay ugu dambeysay leedahay aan arka biilkii uga dhaqaaqay gabadhii hadii kabalyeeriyada iyo maamulkii maqaayadu u yeertay dhaada biilka meeqa waay waa 10,000 oo lacag Kenya gabadhii waxay taagan tahay lacagtan aniga ma cunin mana bixinaay waa la iskugu soo bixi maqaayad way u gardhigatay maamulka maqaayad waxay taagan tahay CCTV kamerada hala fiiriyo 1500 oo kaliya way biilka aan cunay 1500 na waka miiskan saare lacagta idan ka maqan ninkaas cunay muuqaalkiisa waka waa u jeedaan ninka magaaladu joogay raadsada ninka ma garanay maanta igu horeeysa meeshan iskugu imaan
gabadhii raggi way u gardhigatay dadkii kale isku soo baxo maqaayada dhageysanay gabadhii ay la dhinac mareen gabadhii maadaama ninka uu ceebeeyay dadweynaha magaalada hortooda uu marada kaga dhigay waxay go'aansatay inay raadiso oo isagana ceebayso magac qaldan uu sheegay accountii aan sax ahayn uu ka shukaansaday magaciisa saxda ay soo raadisay iyo accountkiisa saxda ah social media ay keentay wallahi billaah dumarka qaarkood een lagama galo waa ka aarsanayaan war dumaro waxaan in leeyahay rag fara badan oo nooca oo kale taa buuxa baryaan hadduu qof aad garanaynin oo maalinka koowaad aad arki uu ku ballamiyo maqaayad uu kugu ballamiyo lacag hore u qaada aad isku furdaamisid waa plan B yaa la dhaa lacalla ninka hadduu rufiyaan nooca oo kale tan noqdo uu ka cararo fiyaasiga iyo weelashiya lagugu dhaqin wax aad isku furatid hayso oo gacan lalaad maqaayad qof kugu ballamiyay weliba ragga maanta joogo weligaa ha tagin warwaani salaame wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu adiguse gabar dhacdo noocan oo kale ah weli ma ku soo martay hadday ku soo martayna qaab noocee ah ayaad kaga dabaalatay badweyntan inkastoo aan aaminsanahay wiil Soomaaliyeed inuu inta gabar Soomaaliyeed kaxeeyo maqaayad geeyo damiirkiisa iyo dannimadiisa aysan siinaynin inuu kaga dhaqaaqo ama maqaayad uu kaga dhunto taasi waa uu ka dhintaa wiilka Soomaaliyeed hadda waa sidaan aaminsanahay adiguse weli ma la kulantay rag dhaqamada noocan oo kala leh ee gabdhaha inta kaxeeya maqaayadaha geeya kadibna cadowga u looga ka dhunta ilama aha inay jiraan adiguse haddii aad hore u aragtay ama aad maqashay aragtidaada qaybta hoose ee community weligaas haddii ay dhacdo in wiil aad u raacdo maqaayad waxaa laga yaabaa in jeebkiisa uusan buurneyn lama filaan ku noqoto maqaayada qiimaha markaa cunada ama waxyaabihi aad ka cabteen uusan haynin weligaaba waxaad yeelataa plan B oo kaashkaaga adigu iska wado waxaa laga yaabaa in wiilkaasi adiga xataa aad caawis bal muuqaalka xiga halkan ku muuqatana waxa fadisay caawa wixii ka dhacay kaliya waxaan ku tilmaami karaa musiibo waa dhacdo qaraacan murugo uu ku taalo walwal iyo walbaar xambarsan halkaani waa maqaayad ku taala xaafadda Talisli muuqaalkan waxa soo duuban waa milkiilaha maqaayadan goor dhow ayaa la furay waqti kooban ay furan tahay waliba dabaq cusub ay ka hoos furan tahay haddana wali qarashaadkii dhismaha quruxda badnaa ee qaaliga ah la geliyay lagama soo saarin kirada bishii ugu horeysay xataa sidan filayo wali lagama soo saarin aad ogtahay maqaayad cusub markii la furo ay u baahan tahay samir iyo dulqaad intii aad ka helayso macaamiil ku taageerta haddana caawa rag is eriyanaya isbursanaya laba kooxood ah dharagsan ayaa maqaayadii iskugu galay way burburiyeen baangad ay ku burburiyeen sida ku muuqata dhulka ay wada dhigeen dadkii maqaayada fadhiyay milkiilihii waardiyihii wixii cunada karinay dhammaan jikada ayay galeen oo cidna waa weerar celis bal waa kan milkiilaha oo afkiisa ku hadlaya waliba fariin u daraya dadka dhibaatada intaa leeg u geystay iyo adiga daawanaya fariin noocee ayuu ku sidaa bal af jooga looma adeega muuqaalkiisa ayru daawan waxaan aad iyo aad ugu xumahay inaan caawa arkayo qaayadii aan ku soo tiiriyay taabeelay oo rag dharagsan oo is eriyanaya caawa meeshii iga jabiyeen dhalada hadda aad arkaysiin muraayada aad arkaysiin dhagax laguma dhufan baangad baa lagu garaacay kastamarkii iyaga laftigooda kijada isku soo wada ururiyeen raggii soo galay meesha iyaga laftigooda midiyay wateen marka waxaan la yaabanahay dad intay dhargaan dadka bini'aadanka ah wuxuuda maaragtay iska jajabinaya waxaan ku leeyahay dhacaya haddii doonaan caawa sadaqan u baxsatay marka waxaan leeyahay niyow waxaan idhaahdaa garameyn caawa madaxa xanuunaya wallahi inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun hadda ragga waxaa laga yaabaa dembiga ay ka galeen ninkan ganacsadaha ah ee asaga u baahnaa gargaar iyo gurmad iyo garab istaag haddana maqaayadiisa sidaas u burburiyo way iska tageen fariintan fadlan ila gaarsiiya labada qolo ee maqaayadan isku dhex bursaday waliba si wada jir ah u wada burburiyay ilaahay ka cabsada ninkan ganacsadaha qasaare lixaad la ayuu ku jiraa
adiga ayaana sabab u ah oo weliba baangad adigoo caraysan qof kale u socdo haddana maqaayad qof aan wax dembiya kaa gelin ayaad burburisay fadlan labada qoloba waxaa waajib ku ah kan la ceersanaya iyo kan wax ceersanayaba dhammaantiina mas-uul ayaad ka tihiin maqaayadaas burburkeeda fadlan ganacsadahaas u taga xaqii iyo qarashkii aad geliseenna fadlan dib ugu celiya war khasaaro laba ayaad geliseen ugu horeyn maqaayadiisii burburkaas ayaad u geysateen oo waad baabi'iseen tan labaadne macaamiishii hadda cusbeed ee maqaayadii la barayay ayaad cabsi iyo kalsooni darro iyo amni darro ku abuurteen suurtagal ma noqon kartaa maqaayadda qofka macaamiisha ee fadhiyey inuu berrito la soo aadi karo ilaan wuxuu leeyahay halkan amniba maahan waa meel la isku dilayo oo weliba baangada la isku wato fadlan ninkaa labadaa khasaare ayaad geliseen kasoo garbaxa oo ilaahay ka cabsada waad heshiin doontaane ninkaa inta uda tagtaan si wada jira haddaartiin qoloqolo iyo qayb ugu taga haddana xaqii aad ka gasheen iyo khasaarihii aad ka gasheen u guda raaligeliya haddii kale maalin waxaa jirta ilaahay hortiisa la istaagayo oo la qatan yahay oo la qaawan yahay oo la inkiri karin oo la dhuumo karin maalintaana aysan jirin dhuumasho iyo ma yeelin iyo adoo baangadii wato oo miraayadii ninkan khasaaraha intaa la egelinaya ayaad soo bixaysaa amba akoonka aakhiro ayaad ku gudaysaa ama akoonka adduun ayaad hadda intay goor tahay inta u tagtid niyow intaana awoodaa xataa ku dheh intaana awoodaa fadlan daawadayaasha muuqaalkan daawanayana waxaan si naxariis leh kaga codsanayaa inaan si wada jir ah ugu duceyno ganacsadahan maqaayadiisu cusub tahay haddana khasaare lixaad leh maanta ay geliyeen rag hardamaya weliba sidaa u burburiyo inuu ilaahay badal kheyr qaba siiyo maqaayaday u noqoto miduu ku dago rajadii iyo noloshii uu shal u furtayna inuu ilaahay u rumeeyo guul la taaban karo ilaahay inuu gaarsiiyo aamiinta waxaa laga yaabaa saacad ay samada furan tahay inaad aamiinta ku kabto waxaan leenahay saaxiib nabar xaq daran allah kaaga dhigo badal kheyr qabana allah ku siiyo guul iyo gobonimo ayaan ku leenahay halkaan ku saameyna guudaan muuqaalada adigu talagal maanta si aad muuqaaladan xiga aalaba update-ka ugu kulanta kaliya waxa ka xigta adigoo channelka rukunta subscribe saar sidoo kale waxaan ka codsanaynaa muuqaalkana noo qurxisaan qof walba muuqaalka daawanaya fadlan laagta iyo sharta soo keendara si guud ahaan muuqaalkeenu u gaaro bulshada Soomaaliyeed muuqaalkan mid lamid ah. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.